magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa la weerar lagu qaaday qunsuliyadda Israa'iil ee ku leedahay magaalada Istanbul. waxaa la sheegay in dhaawac iyo dhimasho uu ka dhashay weerarkaasi. 3 ruux oo hubeysan ayaa weerarka soo qaaday. 2 ka mid ah ciidanka booliiska ayaa la sheegay toogashadan inay ku dhaawacmeen kadib markii la beegsaday meel aan sidaa kaga fogeen qunsuliyadda Israa'iil ee ku leedahay magaalada Istanbul, iyadoo markii dambena albaabka qunsuliyadda loo dhawaaday. dhisme sida la sheegay ay degan yihiin qunsuliyiinta Israa'iil ee magaalada Istanbul ayaa weerarka koowaad lagu qaaday. Sagaal sare oo hadle ciidamada ammaanka ee dowladda Turkiga ayaa sheegay markii dambe in la toogtay ilaa iyo 3 ruux oo la sheegay inay ahaayeen kuwa weerarka soo qaaday. Muuqaalada la soo bandhigay ayaa muujinaya kuwa weerarka soo qaaday oo ku dhumaalaysanaya albaabka laga galo qunsuliyadda iyo agaarkeeda iyo gawaarida halkaa taalay. kadibna markii dambe iskoorimaad kooban ayaa goobta ka dhacay. hal ruux oo rayid ayaa sidoo kale la sheegay in weerarkaas uu ku dhintay, iyadoo 3 kalena ay dhaawacmeen. markii dambe ciidanka ammaanka ayaa toogtay dadkii ka dambeeyay weerarkan oo lagu qaaday qunsuliyadda Israa'iil ee magaalada Istanbul. faahfaahin dheeraada dowladda Turkiga ma aysan bixin, laakiin mas'uuliyiinta qaar ayaa sheegay suuragalnimada weerarkan inay ka dambeeyaan taageerayaasha Iiraan. aan dhinaca kale eegno wararka soo kordhay. dowladda Pakistan ayaa dadaalka ugu badan bixinaysa maadaama saacado kooban ay ka harsan yihiin waqtiga hanjabaadda ee madaxweyne Trump uu sheegay in weerar culus uu ku qaadi doono Iiraan. weerarkaas oo uu tilmaamay in Iiraan dib uu ugu celin doono faci dhagaxa. wararka ee wakaaladda wararka Reuters baahisa ayaa sheegaya in dowladda Pakistan sidoo kale xiriiro kala duwan ay la sameysay Turkiga iyo Masar, kuwaasoo dadaalada diblomaasiyadeed qayb ka ah. iyadoo xaaladda sidaa ay tahay, dhinaca kale duqeymo culus ayay weli isweydaarsanayaan Iiraan iyo Israa'iil. Maraykankana duqeynta ayuu qayb ka yahay. waxaa maanta la weeraray jasiiraddii maalmihii ugu dambeeyay sida weyn loo hadalhayay ee suuragalka ahayd Maraykanka inuu doonayo inuu gacanta uu ku dhigo. waa jasiiradda Qaraj lagu magacaabo. sida wararku ay sheegayaan, weerar culus ayaa diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ee halkaas ay ka fuliyeen iyagoo kaashanaya kuwa Israa'iil. waxaa la sheegay weerarkaas inuu ka dambeeyey kadib markii diyaarad daroonisa lagu soo riday jasiiradda maanta oo Talaado ah. kadibna waxaa xigay in la beegsaday jasiiraddan shidaalka qaniga ku ah oo dowladda Iiraan muhiimka u ah. arrintan waxay timid kadib markii sida la sheegay saacadii ugu dambeeyey diyaaradaha qaarkood ay dul haabayeen jasiiraddan, waxaana halkaasi lagu soo riday diyaaradda nooceeda uu yahay MQ-4C sida wararku ay sheegayaan. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in diyaaraddu ay tahay mid daroonisa oo nooca MQ-9 loo yaqaana ah. duqeynta ugu culus ayaa waxaa lagu warramayaa markaa inay diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ay fuliyeen, iyadoo khasaare aan ilaa iminka xog rasmi aan laga haynin. faahfaahin kalena lagama hayo goobaha kala duwan ee la beegsaday, laakiin dowladda Iiraan ayaa sheegtay ama xaqiijisay in weerarkan uu dhacay maanta. arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo Iiraan dhankeeda ay weeraro culus ay ka fulisay gudaha dalalka Khaliijka sidaan arki doonno. laakiin aan kula wadaago, madaxweyne Trump mar kale hanjabaad culus ayuu soo diray. waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa social media uu ku leeyahay ee isaga gaarka u ah. wuxuu si cad u yiri, dowladda Iiraan 47 sano ayay handadaysay, sidaa daraaddeed handadaad kama ogolaan doono. saacado kooban ayaa u harsan. Iiraan waxay dib ugu laaban doontaa faci dhagaxa. waan burburin doonaa hadda, laakiin waxay haysataa waqti. sidoo kale ma doonaya buu yiri in Iiraan aan sidaa u galno oo aan baabi'ino. hadalkiisa waxaad ka dareemaysaa madaxweyne Trump marnaba inuusan doonaynin weerar dhulka ah iyo weeraro culus in la qaado, laakiin ay jiraan waxyaabo ku qasbaya hanjabaadaha tirabeelka ah iyo in ugu yaraan weerarkaasi uu qaado haddiiba go'aankiisa kama dambaysta uu yahay. waxaa jira dhinacyo kala duwan oo ka soo horjeeda weerar la qaado waqti xaadirkan iyo dhinacyo taageersan. sida wararku ay sheegayaan, xitaa hadda madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa dadaal badan ku bixinaya inaan weerar la qaadin. sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenku wuxuu doonayaa inuu siyaasadda in badan ku sii jiro. wuxuu isu arkaa nin hogaamiye noqon kara, mana doonayo inuu go'aanada qaar hadda uu madaxweyne Trump uu ku taageero. dhinaca kalena waxaa soo baxaya Steve Witkoff iyo wiilka sodoga u yahay madaxweyne Trump inay iyagana hadda isbedel uu ku yimid aragtidoodii, oo suuragal ay tahay inay taageeraan heshiis nabadeed oo la gaaro. inkastoo Iiraan ay diiday heshiis ku meel gaar ah iyo soo jeedin ka timid dhanka Maraykanka. hadda madaxweyne Trump marka wuxuu yiri, ilaa caawa ayaa waqti kama dambays ah ay Iiraan haysataa, saacado kooban ayaana harsan. wararka qaar waxay sheegayaan ilaa 15 saacadood inay Iiraan ay u harsan tahay waqti xaadirkan. Iiraanna waxay diidan tahay soo jeedinta dowladda Maraykanka in la qaato. Netanyahu iyo saaxiibadiisa ku xiran waxaad moodaa inay aad uga soo horjeedaan madaxweyne Trump in heshiis uu gaaro, waana midda keentay maanta inay soo jeediyaan hanjabaad ah inay beegsan doonaan tareenada
iyo xarumaha tareenada laga raaco iyo guud ahaanba kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda iiraan. xarumaha shidaalka iyo xarumo kale ayay sidoo kale sheegeen inay beegsan doonaan, iyadoo xitaa maanta la diiwaan geliyay gelinkii dambe in qaar ka mid ah buundooyin ku yaalay gudaha iiraan la beegsaday iyo xarumo tareenada laga raaco, iyadoo Israa'iil ay caawa abaaro 9 habeenimo xilliga Iiraan ay u qabatay, waa xilliga 8:15 ee saacadda Geeska Afrika. xaaladdu marka aad bay u adag tahay, saacadihii ugu dambeeyay ayaa la marayaa. duqeymo culus ayay labada dhinac isweydaarsadeen. Iiraan gudaha Israa'iil ayaa muujid kale oo gantaalla ay ku weerartay. sidoo kale waxaa weerar xooggan lagu qaaday qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka. dowladda Sacuudiga oo kale waxay sheegtay saacadihii ugu dambeeyay 18 diyaaradood oo droonisa in lagu weeraray. sidaas oo kale dalka Bahrain ayaa sheegay in 24kii saaci lasoo dhaafay weerar aad u culus ay la kulmeen, iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah la bixin. dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta sidaas oo kale waxay sheegtay inay qaar ka mid ah diyaaradaha drones iyo gantaalo dhanka Iiraan ka yimid inay ka hortageen. dowladda Qatar dhankeeda waxay weerar la kulantay toddobaad kadib, waxaana dowladda Qatar ay soo saartay qoraal. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa warbaahinta la hadlay, wuxuuna si cad u sheegay Qatar inay cambaareynayso weerarada kala duwan ee dowladda Iiraan iyo xadgudubyada Iiraan ay sameynayso iyo dadaalada diblomaasiyadeed oo dowladaha qaar ay wadaan oo Iiraan ay carqaladeynayso, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar. dowladda Kuwait ayaa sidoo kale sheegtay tan iyo maalintii shalay 14 gantaal oo balastiga in lagu soo weeraray 2 nooca cruiska ah iyo 46 diyaaradood oo droonisa. Kuwait waxay ka mid noqotay dowladaha weerarada ugu culus la kulmay saacadihii la soo dhaafay. wararka kale haddii aan eegno, Xisbullah ayaa lagu waramayaa maanta inay si toos ah isugu dhaceen ciidamada Israa'iil, sida lagu sheegay qoraal xisbiga ka soo baxay. sidoo kalena Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday ilaa iyo 36 ruux inay kaga dhaawacmeen dagaal ka dhacay gudaha dalka Lubnaan, gaar ahaan deegaanada dhinaca xadka ah. waxaana ay sheegeen askartaasi inay ka dhaawacmeen labadii maalin ee lasoo dhaafay. tani dagaalka markii uu bilowdayna waxay sheegeen 411 askari inay ka dhaawacmeen. 27 ka mid ah waxaa la sheegay xaaladoodu inay aad u daran tahay, halka 60 kalena la sheegay maskaxiyan inay u dhaawacmeen. iyadoo xaaladdu sidaa ay tahay ayaa deegaanka lagu magacaabo Cayn al-Khana iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta Lubnaan waxaa lagu waramayaa maanta inay Israa'iil duqeymo culus ay ka fulisay. goordhow waxaa Israa'iil ay duqeymo ay ka fulisay sidoo kale koonfurta magaalada Tehran, waxaana la sheegay mid ka mid ah buundooyinka ugu muhiimsan oo tareenada ay ka gudbaan in la beegsaday. tanina waxay qayb ka noqonaysaa carqaladeynta dadaalada la doonayo in la isugu soo dhowaado. waxaad moodaa hadda dagaalka weji kale inuu yeeshay. sargaal u hadlay ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa wuxuu yidhi dagaalkan weji kale ayuu yeeshay, waxaana diyaar aan u nahay inaan laba jibaarno duqeymaha aan ka geysanayno gudaha Israa'iil, annaga oo adeegsanayna gantaalada Faatix iyo sidoo kale gantaalka lagu magacaabo Khaybar. tani marka waxay ka dhigan tahay in hanjabaaduhu ay sii kordhayaan. Iiraan waxaa la doonayaa cadaadis xooggan in la saaro, duqeyntan ay ku socoto, iyadoo dhanka warbaahintana madaxweyne Trump uu hanjabaadihiisa si isdaba jooga u soo qorayo. wargeyska Wall Street Journal waxa uu baahiyey isagoo militariga Mareykanka soo xiganaya ilaa 50 goobood in Iiraan laga beegsaday, gaar ahaan jasiiradda Qaraj lagu magacaabo, waana duqeyntii ugu cusleed oo jasiiraddan ay la kulanto tan iyo dagaalka markii uu bilowday. sidoo kalena hay-adda bisha cas ee dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay dhowr ruux ay dhaawacmeen kadib markii la beegsaday maanta mid ka mid ah wadooyinka tareenada ee magaalada Qaraj lagu magacaabo gobolka Alborz, iyadoo tiradada la sheegay inay dhaawacyo ay soo gaareen. xitaa agagaarka goobaha tareenada ee la beegsaday waxaa la sheegay in korontadii laga waayay deegaanadaasi, iyadoo ay ugu wacan tahay gantaalada lagu weeraray magaalada Qaraj lagu magacaabo. dhanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan waxay sheegeen iyaga inay dhowr gantaal ay ku weerareen oo gantaalada nooca Khaybar ah in ka badan 30 goobood oo ka tirsan gudaha Israa'iil, magaalada Be'er Sabca, Dimona, Tel Aviv, Tikva iyo deegaano kale ayay sheegeen inay beegsadeen saacadihii la soo dhaafay. xaaladdu marka aad bay u adag tahay. wararka kale ee ugu dambeeya haddii aan raacino, raadiyaha ciidamada Israa'iil waxa uu leeyahay 10 xarumood oo kala duwan iyo oo tareenada laga raaco iyo buundooyin ayaa khasaare la gaarsiiyey xarumaha la beegsaday gudaha Iiraan marka la eego. sidaasi oo kalena qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada lagu magacaabo Qoram Shahir iyo magaalada Cabaadaan oo gobolka Khuzestaan ka tirsan oo koonfur galbeed dalkaasi Iiraan ah. sidoo kalena dhowr jasiiradood ayaa lagu waramayaa oo gobolkani hoostaga in weerar lagu qaaday maanta, waana weerarkii ugu cuslaa oo Iiraan lagu qaado saacadihii la soo dhaafay, iyadoo oo madaxweyne Trumpna hanjabaado uu jeedinayo.
dhanka magaalada Tel Aviv duqayn culus ayaa hadda ku socota sida ay warbaahinta Iiraan ay baahinayso. Maraykankana waxa uu taagan yahay jasiiradda Qaraj. Maraykanka oo kaliya ayaa duqayntiisa fuliyey, balse Israa'iil wax shaqo ah kuma lahan. Warbaahinta Press TV oo Iiraan laga leeyahay waxa ay baahisay in Maraykanka waxyeello weyn ay ka soo gaartay weerarkii ama howlgalkii fashilmay oo dhowaan ay ka fulinayeen gudaha Isfahan, sida telefishinka Press TV uu baahinayo. sidoo kale dowladda Iiraan wakaaladdeeda wararka Tasnim News Agency ayaa baahisay inay beegsadeen warshado petrochemical ah oo gudaha Israel ku yaala. warshadahani waa kuwa soo saara agabyada aasaasiga ee dadweynuhu ay u baahan yihiin. xaaladdu aad bay u adag tahay, duqaymo culus ayaa la isweydaarsanaya. dhanka Shiinaha waxaa lagu waramayaa 29 markab oo Shiinuhu uu hogaaminayo in labadii maalin ay ugu dambeysay ay ka gudbeen marinka Hormuz loo yaqaano, sida telefishinka Al Jazeera uu baahinayo. Israa'iilna waxay sheegtay ciidankii ugu badnaa inay geysay koonfurta dalka Lubnaan, iyadoo Xisbullah ay arrintaasi kaga jawaabeen gantaalo lagu weeraray fariisimaha ciidamada Israa'iil ay deegaansanayaan. xaaladdu aad bay u adag tahay. wax walba oo soo kordha waan kula wadaagi doonaa. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.